kulanti wacan daawadayaal innaga oo ay guud ahaan dadka Soomaaliyeed ay wada taabatay geerida Allah oo naxariistay sareeyo guud farxaan maxamuud aadan farxaan qaroole waxa ay la joogtaa Faadumo oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho isla markaasna ay si dhow u wada shaqeynayeen sanadihii soo dhaafay shaqooyin badan ay wada qabteen wariye gaar ah oo si gaar ah arrintan iyo ciidamada uga soo warramayeen ahayd sida noo muuqata indhaheeda ilin ayaa saaran waxaan rabnaa inaan wax yar kaga ogaano farxaan fahantiisii iyo waxa ay ka taqaano maadaama ay shaqo wadaag ahaayeen Faadumo soo dhawow cali waa mahadsan tahay inkastoo hadalka aan kari karin waana kaaga mahad celinayaa waxaa maanta halkan aan u joogno waxay tahay aaska taliyaheenii hore marna walaalkay ahaa jenaraal farxaan maxamuud aadan qaroole run ahaantii waxaan in badan daba socdayba maanta aaska farxaana taagnaan doontaa ismareyni laakiin qadartii ilaahay ku imaatay alxamdulilah run ahaantii farxaan markii la dhahaayo dadka badi ay ka wada dharagsan yihiin tani markii geeridiisa la shaaciyey social media ayay taalay waxa uu ahaa shakhsiyadiisa dee nin dabeecadiisu ay furan tahay aadna ugu xil dheereeyay arrimaha ciidanka booliiska runtii wuxuu ahaa sidoo kale qof shaqo yaqaan ah oo aniga markii la fiiriyo ima ahayn taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir keliya wuxuu ii ahaa walaalkay qof garab ii ah miisaanna ii ahaa oo dadkana iiga duwanaa run ahaantii abidna aan arkaynin qof asiga la mid ah marka farxaan markii maanta la fiiriyo run ahaantii waa bal madow ayay noo tahay annaga oo qof muhiim ah iyo xubin muhiim ah ayaa naga baxday farxaanna waxaa dhihi karaa de maanta inaan qabrigiisa dul taagnaado oo asigoo la aasaayo arko waxay noqotay mid qadar ilaahay ay noqotay waa qadartana wax loo joogo waayo adduunkan looga tagaayo bilaa sabab la-aan qof wax u dhimanayo ma jirto marka farxaan waxaan leeyahay ilaahay naxariistiisa jannaha ka waraabiyo kutubkiisa gacanta midig allaha ka siiyo kuwii jannada ku wada kulman allah naga dhigo qof wuxuu ahaa muhiima oo naga baxay laakiin maanta xaalad kale ee tan waayahay Faadumo ma sii hadli karaa intaas ayaynu doonaynaa inaan maaragtay ka warrankeedii aynu ku gabagabayno anoo kula dareemaya maaragtay culayska ay leedahay qof kula shaqeynayo inuu geeriyoodo oo aad sida saaxiib u ahaydeen waxaan rabaa Faadumo dadkaan aqoon meesha lagu aasayo waa xagee waxaa lagu aasayaa xiro madiina oo ah xiro gaar u ah ciidamada sida gaarka u tababarnay haramcad kuna taala aagga isbitaal madiina sida dadku u yaqaanaan ama wadada dheer ee aada xarunta barbaarinta carruurta ciidanka booliiska Soomaaliyeed jenaraal Calgaab oo taliyaha ka yahay laakiin xiradan xiro si gaar ah ay u leeyihiin waa ciidamada sida gaarka u tababaran haramcad oo taliyo ahaa jenaraal farxaan maxamuud aadan allah u naxariisto aamiin allah u naxariisto adigana waan kula dareemaynaa xarunka dhammaanteen dhammaan dadka Soomaaliyeed farxaan qaroole sareeyo guud thank you